بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى بيته ورضي الله عن كل أصحابته أجمعين. داوديال taageerayaal kusoo dhawaada barnaamij kale oo kamida barnaamijyadii aynu wadnay 3 sanadood ugu dambeeyay ee kule musharaxnimadayda golaha deegaanka anaga uga sii sharaxan inaan maayar noqdo. markaa doorashooyinkaasi oo caqalado badan soo maray oo haddii biin maayo aynu wada ogsoonahay wixii dib u jiidayay oo runtii inala hadhay. hadda baad moodaa iftiin inuu soo hiloobay. iftiinkaas oo ah qadiyadii beelaha bari iyo galbeed iyo gabooyi iyo dumarku ee ay saami qaybsiga ka doonayeen. waxay tiri maxkamadda sare in sideedii hore lagu galo oo qarjajac lagu wado. high courtka meel la dhaafaa ma jirto. waxa weeye laakiinse aniga waxay la fiicnaa inay maxkamadda sare muddo u qabato dowladda doorashooyinka ka bacdi bilmetalba 2 sanadood ka bacdi waa in tirakoob caam ah somaliland lagu sameeyo, sidaana lagu kala qaboobo, nin walaaba sidkiina uu qaado. taas ayaa ila fiicneed. haddiise sidana kusii socoto waxa weeye todobada waxaa la odhan doonaa sideeda aan ku galno. laakiinse inagu shicib haddaan nahay inaan inagu doonno weeyo miiska u garaacno oo niraahdo waa in tirakoob la sameeyaa si aynu uga baxsanno doorashada dambe in halkii ay taagnaato. waxaan aaminsanahay walaalahayga bari iyo galbeed iyo gudaba qof walba wuxuu tirsanayo ee ka maqan in hoos loo eego, la derso, meel dhexe la isugu yimaado. dowladnimaduna waxay ku fiican tahay inaan la kala yeelan, in qof walaaba meeshiisa ama goobtuu joogo sare uga qaado, in la wada hadlo, hadal wax badan lagu dhameeyo oo sidaasi aynu maaragtay kaga duwanaano dadyo badan oo adduunka ah. qodobka labaad aan inii sheegaya waxa weeye arrin aada iyo aada muhiima oo ah in la codeeyo oo doorashada soo socoto la codeeyo oo kaararka la qaato ayaa haddii biin maayo loo baahan yahay. nidaamkii one man one vote-ka ahaa aynu qaadanay ee niri waynu ku kala badbaadaynaa burco, dad baa u xaytay inay lugaha gooyaan. markaa waxa weeye nina qori ku qaban maysid, nimaad haddii biin maayo doorasho kusoo bixino kuu talin maayo. marka inaynu maaragtay haddii biin mayno codayno oo mabda-a aamino oo kelmadda xun ee haddii biin maayo afkiinu bartay aada iska daysaan. waxaan ka codeeyaa kuwii horeba khasaaraan ka joogaay. iyagu male kuwaasi wax dad aan qiimo lahayn weeye, laakiinse adaa ka dambi badan. sababtu waxay tahay dee adaa ilaashanaya qofkii soo baxaya inuu haddii biin maayo yahay darayd beersan shaar cadda hadduu yahay adigaa baadhaya,
adiga haddii biidma habeenkii guriga ugu tagaaya, adaa miiska u garaacaya, waxaas iyo waxaasaan doonaynaa, kooxdaasaanu nahay, dadkaasaanu nahay. dadku hadduuna isku duubnayn una aragti wada lahayn balaayaa dusha ka fuulaysa sida kuwan iminka jooga. marka waxaan igula dardaarmayaa inaad iska daysaan. anugu cidnaba u footeyn maayo, waa khalad xaggiina ka yimid. footeeya, ninka aada u footeenaysaanna 4 darajo ayuu marayaa. reerkiibaa soo saaraya, xisbigiibaa soo saaraya, dadweynihiibaa soo saaraya, golihii degaankaa soo saaraya, ama baarlamaankiibaa maaragtay markaa ninkii u madax noqonaya soo saaraya. haddaad seexataan kuwan unbaa laynaga daba keeni. ilaaha weyne waaxidkaana waxaan ka baryayaa in ilaahay inoo hirgeliyo one man one vote-kaa aynu ku kala badbaadayno oo odaysaan. iminka waxaan arkay maalmo dhaweyto dumar xusbiga deganaa oo cagacagafun la geliyey oo soo musanaabay oo xagga madaxtooyada yimid oo sii socda oo soo socda. islaam baa isla hadlaysay, afkana fartayda ay saartay, markaasay tiraahaa fartaydaan ciisha, fartaydii ayaan ciisha. waxa weeye fartiian ku codeeyey ayaa dhibaatadan ii keenay. oo macquul ama sharci daraad ku deganaati ama sharci aad ku deganaati in lagu qadariyo, lagu qiimeeyo, haddii biidmaayo lagu yimaado oo maaragtay meel kale lagu siiyo ayaa maaragtay. markaa dadkan iminka inoo madax ah ee golayaasha ku jira iyo kooxo kale oo jira waxay doonayaan in ay haddii biidmaayo mabda-aas one manka one vote-ka ay baabi'iyaan, gebigiisaba afar dhulka ugu dhuftaan. golaha wakiilada haddaan soo qaado 15 sannadood bay fadhiyeen. waxaan masala idiin siinayaa xeerkaas waa xeerkii caasimadda lagu dhaqaayay. maxamed ibraahim cigaal waaguu joogay ayaa la daraafgareeyey, baarlamaankaa la geeyey. sidii saasuu isugu xidhan yahay, sidaasuu u dhamaystiran yahay. halkii la dhigay maalintii baarlamaanka 15 sana ka soo wareegtay. caasimad walow adduunkuba waxay leedahay xeer u gaara oo lagu dhaqo, ay kaga duwan tahay degmooyinka kale. ma nimanka 15 sannadood fadhiyey ee xeerkaa 3 cisho ku bedeli waayey ee ku dhamaystiri waayey ayaynu wax ka sugaynaa. ilaahooda meeshay ka geli doonaan anigu ma garanaayo. waxaa la yidhi waraabe ayaa hal isku dayay inuu cuno hal weyn 10 jeer isaga ka weyn, markaasay legdantay. markaasuu waraabe hoosta maray. dee miyuu iska xijin karayaa? hashana caweer baa la odhan jiray. markaasuu yidhi alla nasiib badanaa caweer nimanka ka kacda, alla nasiib badanaa ninkii caweer ka kacda. imika nasiib badanaa nimankan inaga horkiciya. guurti, gola degaan, baarlamaan, ya waxa weeye dad danahoodun cararaya 24 saacadood oo sharci darro ku jooga meesha. innaga ayaa wax bedeli karayna together. dhibaatooyinka taagan ee kale ee maaragtay maanta aan aada uga dareemay waxaa ka mid a wasaaradda beeraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dowladda waxay leeyihiin shaqo ha la abuuro, dhalinyarada shaqo ha la abuuro. haddana waxaad arkaysaa beerihii la qodaayey ee khudradda lagu beeraayey in laga keenay khudrad, basal, basbaas, tamaandho, salad laga keenay China ama laga keenay Suudaan ama South Africa laga keenay.
ayaa waxa loo dhigdhigayaa sidii qaadka dumarkii ugu dambeeyey ee iibinayay ayaa faraasilada loo dhigdhigaya. ninkii beertay qiimo ka jaban baa lagaga iibinaya, sidaa loo eegi maayo. dee ninkiina saas uu isku soo taagi. haddana dowladdu waxay leedahay haddii shaqaanu abuurayna xaggana way haddii foosto dabada ka daloosha ayay biyo ku dhaaminayaan. war cashuurta ha lagu qaalagarayo dadka dibadda ka keenaya khudradda, ha la dhiirigeliyo beeraleyda, waxa la baro. qodobka kalena waxa weeye qurba jooggeedna aynu jirnaxdo. war adduunka kale sistamo badan oo fiican bay u sameeyaan. bangiyadooday lacagta kusoo shubtaa, saving baa loo sameeyaa, tukalaa loogu daraa, guryaha loo dhisaa ay dalbadaan. waxa weeye waa la tiiriyaa. halkanna dhulkii ay ibsanayeen marka sidaa loo eego la yidhahdo waa qurba joog, dowladaya waa 200 oo kan shaarku islahaa iibso ee $5 ahaabaa loodhanaya waa $30. cidbahaynu jaraynaa. waa kuwii markaynu qaxday intii ka horreysay iyo intii ka dambeysay bayna haysay. cadowtinimada intaa leeg ma aha haddii biin maayo wax loo dul qaadan karaayo. waxaa jirta 3 sannadood ee iminka soo waday barnaamijkan doorashada. waxyaalo badan baa ii kordhay, dad badan baan la kulmay. ilaahay mahadii waxa markaa aan maanta soo kordhinayaa sidaan horeba u soo kordhiyey. bini aadmigu isagoo wax bedela mooyaane asalkiisaba horumar ma gaadho. maxamed ibraahim cigaal allah u naxariistee ayaa dubi laga doonay, waa la keenay. wuxuu arkay eelihii iyo hubkii wada sita oo isku leenaya. halkaa stadiumku maaragtay tegay uu ka qudbadeeyey. waanu sii lugaynay. 2 mid soo gala buu yihi, inaad keentaan hubka gacanta ku haysaan oo aynu dowlad noqono, ciidan aan sameeyo, iyo inuu kala dhaqaaqno. isbeddel buu doonayay. nasiib wanaag isbeddelkii waa lala gargaaray. shicibkuna way daneynayeen oo hubkaasunbaa lagu leynayay. marka unless uu bini aadmigu sameeyo isbeddel, nolosheennu ma toosayso, mana haddii biin maayo hagaagayso. waxyaalaha qorshayaashan sameeyey waxaa ka mid a halkan iminka waxaan inagu duubay 4 saacadood ama 5 saacadood oo barnaamijyadeyda ah iyo wixii aan qabtay iyo wixii aan qorsheenaya inaan qabto. maanta laygama baahna inaan haddii biin maayo halkan aan ku dhigo. waxa weeye meeshan 2 qof unbaa haddii biin maayo dagaalamaya, shaar madoobe iyo shaar caddayaal. shaar madoobayaashu waa nimankaa maaragtay haddii biin maayo isla helay siyaasigii, ninkii qalinka ku shaqeynayay, dilaalkii iyo ninkii ganacsatada ahaa oo wax kastaba marsiinaya. shaar caddayaashiina waa nimanka makhaayadaha fadhiya ee PhD-da wada sita ee wax hagaajin lahaa haddii la doorto, laakiinse waa la agmaray. haddaba sidaynu ula dagaalamaynaa shaar madoobaha? waxa weye dalka China wuxuu soo saaray mabda. wuxuu yidhi ninkii wasiirka maaliyaddii baa dee 1930 wuxuu yidhi mar kastaba 30 milyan oo qof waa inay jeelka inoogu jiraan. ninkii jeelku ku jira ee dembiga sameeyey quraac baa la siinayaa, calooshaa loo buuxinayaa, dabadeed waa lagu shaqaynayaa. cashana waa la siinaya, qadana waa la siinaya. marka
waddanka waxa dhisay dadka haddii biidmaayo ayaa dhisay ya marka in lala soo baxo dadka waddanka dhisaaya oo lasoo socdo oo la doonto oo la baadho oo laga eego inuuna shaarmadoobe ahayn ayaa loo baahan yahay. waa dhallinyaroy war hadaawadnida waxyaalaha qaarkood war 5 saacadood 6 saacadood 7 saacadood ba internet ku jirtaane war hal saacadood bal intaad iskaashataan ninku reerku soo saarayo eega bal ninku uu xusbigu soo saarayo eega bal ninku uu shacbigu soo saarayo eega bal ninka haddii biidmaayo guddoomiye ka noqonaya golayaashaas la socdo oo soo eega war dhaqdhaqaaq sameeya ya ma aha inaad haddii biidmaayo aad haddii internet waad ku jirtaan 24 saacadood ya xooggiinii eeg 20 sannadood haddaad tahay 20-30 jir waxa waddanku u baahan yahay 45 sannadood ya inaad shaqayso waddankii u shaqayso xoog geliso waddankiina waxaad kaga iibsanaysaa xooggaagii in lagu siiyo caafimaad in tacliin lagu siiyo in haddii biidmaayo dhul aad degto bilaasha lagu siiyo in amaah lagu siiyo guri jaban aad ku samaysato in jaamacaddaadii haddii biidmaayo lagaa bixiyo laakiinse la eeganayo 45 sannadood xoog uu soo kordhinayo ya marka taa u diyaar garooba horena aniga haddaan inigu sheegay haddaad maayar iga dhigataan dhul la kala iibsanaya abadan maba jiraayaba wuxuuna u jiraynin ya labada nin iga duubaayba masal ka soo qaad oo 30 jiro ya nin walaaba gurigii hooyadii aabihii buu maaragtay la jooga goormee wax dhisay baloodhkii waxaa la odhanayaa haddii biiga 70 kun dhakhtarkii haddii biidmaayo carruurtiisa caqligaagasi ma keenayo dawadii lagu mudaayey waxay tahay la garan maayo tacliintii maalin walba waa la kordhinaya ninkan unbaa la lisayaa ilaa uu lismo uu baaba'o marka anigu sidaan hore iniigu sheegay iyagaan dhisaya iyagaan xooggooda ka iibsanaya ya inay waddanka dhisaan ya bangiyaan u sameynaya ay wax ka amaahdaan oo guri yar oo caaqibala oo naqshad cusub leh ay sameeyaan ya ad arkaysaa nin 40 jira 50 jiro maanta reerkii dhex degan oo carruurtii ay hooyadiisa ay hayso hooyadeedna xanuunkii macaankii iyo dhikarkii ay qaaday oo marka dambana isagiina qaado odagiina qaado sidaa reerka ku baaba'ay waxa weeye anigu waxaas oo dhan waan bedelayaa horena waan idiin sheegay marka waxaan doonayaa iniga codsanaya wanaagu bilaash kuma yimaado haddaad wanaag doonaysaan inaan maayar fiican iniin noqdo oon dantiina ka shaqeeyo oo aan laamiyo waxay yidhaahdaan rashiidow waxa ugu horeeya eed qabata haddaanu ku doorano waa in laamiyadii iyo wadooyinkii aada samaysa qorshaan sameeyey road engineers baan u tegay milyan iyo ilaa 2 milyan iyo badh oo dollar baa sanadka hore lagu dhisaya wadooyinka dowladdan dhexena waa dowladun cashuur bay heshaa lacagtii dadkii baa cunaaya waxaas oo dhan waa laga joojinayaa marka waxaan sameynayaa wadooyinkaasaan sameynaya waxay kaloo yidhaahdaan rashiidoo nin nadiifaa tahay nimaan balwad lahayn baa tahay nin mutacalimaa tahay war meeshaa tuug mooyaane cid kale kuma gelaya iska daa ayaad ku xanuunsana de waxa weeye isagii baaba hor cararaya isagiibaa hor cararayo nidaamkii xumaay faasidka ahaa calanka u sida ya
meeda ragadnimadeeni meeda cilmigeeni meeda aqoonti meeda ku dhaceeni walla masaxaya marka waxaan idin leeyahay maanta inigu duubay adduunkii lacag buu noqday shaar madoobihii lacag buu ku soo baxayaa dhul buu iibsanayaa guri buu iibsanayaa wuxuu xaawilayaa inuu halkaa ka soo saari doono dowladda hoose ya uu 10 guriyoo kale ka dhisto ya anuu guriga iibin maayo shaqada mabalihiba waanagii hore iniga sheegay 4 xaafadood ee magaalada ugu weyn Siinaay iyo Maxamed Mooge iyo Aw Aadan iyo Kililka ayaa laygu dhiibay lacag $1 milyan oo microfinance ugu sameey baa leeyahay dan yarta amaah dadka aanu keenno ee markaa baaburka soo dagaya waanu la daba cararaynaa maxaa diibisa maxaa diibin jirtay wan baan qali jiray war maxaa diibin jirtay hoo dhaadka hoo budlad soo iibso dadkii markaa madaxda ahaa waxay odhan jireen Rashiidow block dhan intaasoo block oo dhan buuraha soo jeeda iyo buuraha ka sii jeedaba aanu ku siino حرام بيجتين أنا هالبلور كقاعد صدق كم وشلون بوها مركا أنا بقول لي يبين مايو مبلي هبة قولي ما لا يهاي قولي أنا من يبين مايو وحوي لكن سوينا كعد كان ناشال مذوبة سيستم كوين نخد دجالنا واحد خد دجالنا مثلا إنكو قاعدة كارك كينيكو فوتين سين أني ما ذهبين بدن أسوي شيدين أو فكرتين أو بعدين هذا وردان مركا دجال باشر ماشي دجال كاس محوي هاي بنام كبار طلع بابين أيه خوح يعني شلا قرنا إنه أي بابين أيه أنت على ما أنت بوحد إني شيء إني وكاس وكها وبابا يا يجونا مخرج هرتي أي فوتين أيه sida ninkay doonayaan ugu soo baxo waa in isnaqaanaa Soomaali marka war halay taageero war halay soo saaro war gacanta halay qabto war halaygu hogaamiyo halka maskax ahaan maal ahaan iyo tala ahaan iyo hadii biin maayo si walba gacan ah sida aynu kaga adkaanayna waxa weeye ama ku soo baxayna in wadooyin ku sameeysanayna ee aanan dawladii hoose dib loo cunaynin waa adiga oo isoo taageera Mareykan bay ka dhacda adduunka ka dhacda meel walba way ka dhacda contribution baa la sameeyaa qofka hadii biin maayo ya contribution ayaa la sameeyaa taageero lacageed marka waxaan idinka codsanayaa هاشي دورشوينكو سان bay leedahay sida aan u maleynayana imika waxa laga wada hadlayaa lacagtii ay u baahnaayeen commissionku in hadii biin maayaa loo fadhiyaa budgetkeedii in la saxo runtiina niman dadaalaya weeye oo waxba aan hakranaynin sida imika tahay marka la isla saxo ee la hagaajiyo lacagta la sameeyo mudday sheegaya muddadaas marka lagu galaya haddaba maanta waxba ha sugin haddaad doonayso shaarcada haddaad doonayso wadooyinkii lagu dhiso haddaad doonayso inaad mashruucayga halkan ku jira ka dhageysanaysid la hirgeliyo contribution soo samee $1 soo dir 10,000 soo dir 20,000 soo dir 30,000 soo dir يا واحد يا بعض كوفر ليا يا قاد يدونا يا قدو يا أنا اللي توحد يقول أنا حسابي إنه كل يلا بقول $1 بال ما أنت لقى هدي بين ما يقضي عشان تجيسه ولا تجيسه يا مركا تليفون هذا لك الصباح حاجة عن صباح يبربر قبته وادي تاجر سنتي ركبة بابو رئيس كصوت ورا مركب ماير ليهين لكن سؤال بهاي
galabgal baa loo baahanya telefoonka halaa ka soo baxaya wixii aad maaragtay aad awoodo ku soo dir aan ku dagaalano shaar madoobaha aan kula dagaalano ninka haddii biin maayo 15 sanadood haystay waxaa 3 bilood 3 cisho lagu sameeyay ee ah xeerkii magaalada xeerkii magaalada oo dhammaystiran oo bedel yar u yimid wadiyaabaysa haddaad akhrido waxba kama maqda sixitaan yar 15 sanadood bay ka haddii biin maayo waxaan usoo bandhigay golaha maaragtay nimanka siyaasiyiinta ina Saleebaan Dafle ayaan usoo dhigay yaa oo waa ninka malaa dee 2 nin baa kasii nool golihii sare kacaankeed isagoo Yurub jooga ayaa la wareystay waxaa la yidhi dhibta waddankan taagan ininka u horseeday Soomaali balanbalkeedan sidee u dhacday hayo annaga maaragtay u horseednay TV-gaad ka helaysaa internet-kaad ka helaysaa wuxuu yidhi markii nala jeclaa haybadii aan naga dhicin ee waktiga iyagii ku ekaa ee haddii biin maayo la doonay isbedel dadkii uu isdoonay isbedel inaanu iska wareejinaaba ahayd haddii anagu aanu doonayna qaar naga midi inay doorashada dib u galaan dee inay galaan ba ahayd laakiinse anagu meel baanu gaadhnay meelshaa guul baanu ka gaadhnay laakiinse dadkiibaa isbedel doonay waxbadi may dhicin ilaa markaa waxa weeye isbedel baynu sameynaynaa waxa ku qaataan nimankan baarlamaanka ku jira nimankan guurtida ku jira ee dhaxalka ah ya waxa ku qaataan anigu waan idiin shaqaynayaa waxna inaga cuni maayo kiina yeer iyo kiina weyn qurba jooga iyo qolqol joogaba waan inigu dadaalayaa fadlakum soo dira lacagta aan ku howlgalayo anigu lacag uma baahni laakiinse gurigeyga inaan iibiye ma doodaayo nambaradu halkan idinku qoran yihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu